la saaxiib soo dhawaada hadda waxaan eegi doonaa Kali Linux operating system ka la yiraahdo Kali Linux. Kali Linux waa maxay, wuxuu qabtaa su'aalahaas ka jawaabi doonaa. Kali Linux berigoor waxa loo yaqaanay Backtrack Linux baa la oran jiray. Marka waa open source macnaheedu waxa weeye waa free, wax lacag ku laga iibinaya kuma jirto, internetka free ugu helaysaa. Waxa loo sameeyay marka advanced penetration testing security audit inaad muxuu ahaa penetration testing samayso systemkaaga, inaad eegto muxuu ahaa meelaha laga soo geli karayo, iyo security audit inaad ku adkayso security systemkaaga. Marka Kali Linux waxa ku jira boqolaal tool oo loo sameeyay in lagu sameeyo information security tasks inaad ku adkaysato security-gaaga muxuu ahaa systemkaaga ama server-kaaga ama computer-kaaga ama wixii aad u baahnayd inaad adkaysato security-giisa. marka waxa kamid ah penetration testing, security research, computer forensics and reverse engineering baa kamid ah. intaas lagu talagalay marka Kali Linux waxa weeyaan waa multi platform solution, xalal badan buu sameeyaa marka si free lagu heli karo. marka si free lagu heli karo Kali Linux waxa la sii daayay 13 March 2013 isagoo dhameystiran marka isagoo dib loo hagaajiyay marka Backtrack Linux Backtrack la oran jiray toolka Backtrack la oran jiray ayaa dib loo sameeyay deedna isagoo laga soo sameeyay. marka Kali Linux wuxuu marka ka kooban yahay 600 oo tool, marka 600 oo tool oo free ah ku jira. marka bal aynu eegno hadaba Kali Linux kuma sharci ah mise waa sharci darro isticmaalkiisu. isticmaalka Kali Linux kuma aha muxuu ahaa sharci darro maaha, waa operating system marka wata ku shubatay oo isticmaalayso weey. waxa ku jira marka tools hacking loo isticmaalo. marka haddii aad u isticmaasho muxuu ahaa inaad hacking u isticmaasho black hat aad noqoto, sharci darro noqonaya marka. laakiin haddii aad u isticmaalayso inaad si fiican u adeegsato oo ay kamid tahay inaad barato, inaad dadkii u barto, iyo inaad u isticmaasho sidii loogu talagalay programka, sharci darro ma noqonaya marka. waad install garaysan kartaa, waad soo download garaysan kartaa, website-ka soo download garaysan kartaa. marka sharci darro ma noqonayo maadaama aanu muxuu ahaa aanad u adeegsanin wax ka baxsan si shirkadu ugu tala gashay in loo adeegsado. marka waxay leeyihiin Kali Linux waxa weeyaan weligii free buu ahaanayaa, isagoo ay ku jiraan muxuu ahaa 600 oo different penetration testing and security analytics oo iyaguna ay free yihiin 600 ee tool ee ku kooban yahay. marka uu free multi language support wuxuu awood u leeyahay inuu awood u yeesho in language-ka aad bedelan karto, wala uu customize gareeyo muxuu ahaa waxa weeyaan isticmaalkiisii waa lagu fududeeyay oo GUI baa laga dhigay. inkastoo majority isticmaalayso muxuu ahaa application-adu uu noqonayo muxuu ahaa command line, haddana waa yar indhuhu way qaban kareen, waa tool qurux badan oo si fiican loo hagaajiyay. marka casharada soo socdaan ku dhigan doonaa sida loo soo download gareeyo, sida loo install gareeyo. marka kan waa hordhicin la socod wanaagsan. aad baad mahadsantihiin.